halkani waa qubnaha TV ku soo dhawaada barnaamijkeena xilligan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo si la yaab leh uga hadlay howlgallada ka socda iyo sidoo kale dagaalada lagu saaray al-shabaab waxa uu dhaliil dusha u hubiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay inuu ka gaabinayo howlgallada la doonayo in lagu xoreeyo deegaanada Jubbooyinka oo isagu madaxweyne uu ka yahay hadalada dhawaan uu sheegay iyo sidoo kale xogaha laga helayo khilaafka dhawaanba soo ifbaxay ee u dhaxeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaan idin soo gudbin doonaa dowladda Soomaaliya waxay sheegtay ama sidoo kale dowladda Mareykankana waxay sheegtay shakhsiyaad lacag iyo saad u aruurinaya al-shabaab waxay soo bandhigeen xogan la yaab leh oo shakhsiyaadkaasi ku saabsan xilli dowladda Soomaaliya arintaasi ay si weyn u soo dhaweysay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqina waxa uu weerar ku qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo uu sheegay in uu san raali ka ahayn howlgallada lagu xoreynayo labada gobol ee Galgaduud iyo Mudug sidoo kalena dhawaan waxa uu diiday wasiir Fiqi inuu ka qayb galo shirka dhawaanba ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee maalinnimadii shalay lagu soo gabagabeeyay wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo senator Cabdi Qeybdiid iyo madaxweynihii hore Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed uu sheegay in hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu san raali ka ahayn sidoo kalena uu marar badan isirtaag ku sameeyay howlgallada la doonayo in lagu xoreeyo deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan oo ku yaala gobolada Galgaduud iyo Mudug ee maamulka Galmudug xogaasi kuwa kale ayaan qaybtaan ku faaqidi doonaa saaxiibayaal insha Allah balse aynu ku bilaabno madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa hadal uu dhawaan uu sheegay ku dhaliilay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya aysan raali ka ahayn in howlgallo ay ka bilowdaan sidoo kalena ciidamo aysan u soo dirin maamulka Jubbaland oo uu sheegay in gobol kamid ah maamulkaasi ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab sanadihii u dambeeyay madaxweyne Axmed Madoobe waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xagal daacinayo in xilligan howlgallo ay ka bilowdaan sidoo kalena lagu xoreeyo deegaanada Jubbooyinka ee maamulkaasi hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo la rumaysan yahay in maalmihii la soo dhaafay ay isku dhawaayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilligan waxa la dareemayaa inuu soo ifbaxayo khilaaf u dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya arintani wali kama aysan hadlin dowladda Soomaaliya xilli ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barana uu ku sugan yahay deegaanada ismaamulka Soomaalida sidoo kalena wararka soo baxaya inuu ka heleno Jubbaland waxay sheegayaan in dhawaan Jubbaland ay diyaarinayso ciidamo ay u qorsheeyeen in ay kula dagaalamaan al-shabaab sidoo kalena deegaanada maamulkaasi oo intooda badan gacanta al-shabaab ku jirana ay ka soo saaraan waxa jiro xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo horjeeda hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo dhawaanaha mashaariic ku qabanayay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho sidoo kalena waxay sameeyeen abaabul ay uga soo horjeedaan hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe waxa xubnahani kamid ahaa senator Fartag oo ay saaxiibo dhow ahaayeen hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu abaabulayaa sidii gacanta looga maroojin lahaa maamulkaasi Axmed Madoobe oo sanadihii ugu dambeeyay maamulayay waxa uu sheegay in xilligan loo baahan yahay inuu dhaco isbedel sidoo kalena halkaasi uu yimaado madaxweyne cusub sida uu sheegay in maamulada kaleba uu isbedel uga dhacay in Jubbaland uu yimaado madaxweyne cusub ayna doonayaan in ay ka farmaroojiyaan gacantiisa madaxweynaha haatan talada haya ee Jubbaland uu Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe markaana haddii aynu eegno dowladda Soomaaliya waxa ay soo dhaweysay talaabada ay qaaday dowladda Mareykanka oo ay ku soo rogtay shakhsiyaadka dhanka maaliyadda isaadka ka taageera kooxda al-shabaab oo ay sheegeen in kooxdaasi ay yihiin kuwa u soo jeeda in ay daadiyaan dhiigga shacabka warar ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in laamaha kala duwan ee dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la farayaa inay ka fogaadaan macaamilka iyo wada shaqeynta shakhsiyaadka dambiilayaasha ee ku xusan liiska cunaqabataynta talaabadan ay xukuumadda Washington qaaday ayaa ka dhalatay baaritaano ay si wada jira u wadeen labada dowladood waa Soomaaliya iyo Mareykanka waxay qayb ka tahay dagaalka lagula jiro ama lagu ciribtirayo waxa ay ku sheegaan argagixisada sida qaldan sidoo kalena ay ku sheegeen in ay u banaysanayaan dhiigga ummadda go'aankan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dowladda Soomaaliya ay dhawaan soo saartay awaamiir loogu digayo cid kasta oo dhaqaale iyo sidoo kale wax kasta oo lagu kobcinayo al-shabaab ay ugu deeqaan
sidoo kale bayaanka ka soo baxay dowladda ayaa lagu sii yiri ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo kaashanaya shacabka ay daashadeen gaboodfalada waxyaabaha loogu yeero argagixisada ka wadaan dalka ayaa guulo waaweyn ka soo hoyay dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab sidoo kalena bayaankani waxa uu sidoo kale tibaaxayay in xubnaha la sheegay in dhawaanaha gacanta lagu soo dhigayo ay dawladdu sheegtay in ay ka fogaadaan wax kasta oo lagu kaalmeynayo waxyaabaha ay ugu yeeraan argagixisada qaybo kamid ah gobolada xilligan waxa ka soconaya howlgallo haba ugu badnaadaan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo intooda badan ay ka socdaan kacdoon ay sameynayaan dadka deegaanka iyo ciidamada dawladda madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo warbaahin kamid ah warbaahinada caalamka la hadlay waxa uu sheegay in ay qabsadeen deegaano muhiim u ah al-shabaab sidoo kalena ay gacanta ku hayaan saraakiil ama sidoo kale xubno sarsare oo al-shabaab ka tirsan madaxweynuhu waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan la midayn doono sidoo kalena hal dagaal ay wada galayaan deegaano dhowr ah ayaa al-shabaab laga wareegay oo ku yaala gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaana ugu muhiimsanaa deegaankii dhawaan ay kala wareegeen oo ku yaala ama dhaca xadka gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan sidoo kalena koloyo gaadiida oo ay wateen al-shabaab ayaa dhawaan waxa loo galay jidgooyo sidoo kalena sargaal la hadlay warbaahinada waxa uu sheegay in ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay gacanta ku soo dhigeen hubkii ay wateen iyo gaari nooca loo yaqaano Cabdibilaha iyo sidoo kale gawaarida raaxada oo ay sheegeen in haatan ay ku hayaan gacanta sidoo kale sargaalku waxa uu sheegay in ay hayaan mid kamid ah xubnaha sarsare oo ka tirsan al-shabaab ay gacantooda ku jiro markaan hadii eegno wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macali Fiqina waxa uu markaani sheegay in madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu sarraali ka ahayn howlgallada iyo sidoo kale abaabulka ay wadaan qaar kamid ah siyaasiyiintii Soomaaliyeed ee ka soo jeeda maamulkaasi Galmudug oo hogaaminaya ama warkacayo ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sidoo kalena ay qayb ka yihiin madaxweynihii hore dawlad goboleedkaasi Cabdikariin Xuseen Guuleed Fiqi waxa uu sidoo kale sheegay in inta uu joogo maamulkana uu hayo madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor aysan dhaqdhaqaaq sameey karin dadka deegaanadaasi oo uu sheegay inay caabooyin xilligan sidoo kale ay doonayaan in ay sameeyaan howlgallo iyo sidoo kale dagaallo ay saga saarayaan dagaalamayaasha al-shabaab wasiir Fiqi waxa uu sidoo kale sheegay in gobolada Galgaduud iyo Mudug sidoo kale ay u soo diri doonaan dawladda Soomaaliya ciidamo ka caawinaya dadka deegaanka sida ay ula dagaalami lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxa ku soo gabagabay kulan ay lahaayeen qaar kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulkaasi oo hogaaminaya ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sidoo kalena bayaan ka soo baxay waxay ku sheegeen inay isku afgarteen in dhaqdhaqaaqyo iyo sidoo kale howlgallo balaaran laga sameeyo gobolada Galgaduud iyo sidoo kale Mudug oo ka tirsan maamulkaasi Galmudug xogii ugu dambeeyay aad kala socoteen qubanaha TV-na xilligan wanaaganta